kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idilkiinba meel kasta oo aad ku sugan tihiin halkani waa channelka Caasha Caagane aniguna waa Caasha Caagane marti qaali ah ayaa igu sugan marka hore aan ku wareejiyo Cali oo aad uga barateen toddobaadkii hore barnaamijkii noloshaada sidee u horumarin kartaa iyo caqabadaha nolosha hor istaagi karo oo aan markaa isdul taagna meelo muhiim u ah Cali soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أصحابتا شاعقنا مقاحيق وعلي ساد ويدن أسبوعي هورو وحن كهالينا سيدو قفك نولشي سهر مر وكارسين كرو هادنا برنامجكم بانسيفة فاينينا ونقوده أسيقلينا مركا صعودوا هذا اللي هاي thank you very much. علي أنا ما صنت هاي تطبيقات كهرباء وحن استلت تاجني ومهم وهاد داودياشة إن قفك نفتي زمركور وكو كل صون على تاسو مهم أدوين وقوليه سنولش وجاري كرو إن بالقضبات كلا أصير عدون برامج كان مستركي سقيف طلبات يصير نولش هذا الله مرين كان هذه داودياشة سي إن أسي مكان سينا يقود بدي أتكلم بحسي هناك مكان يدنا مستركي دوبها أوكي عاش هذا ما صنت هاي اوكي marka barnaamijkii hore waxaan ka hadlaynay horta qodobkii ugu horeeyay waa aha aaminaada nafta inaad aaminto naftaada aad ku kalsoonaatid taas waa qodobkii ugu horeeyo aan ka hadlaynay ileen because wax walba aad sameynayso aday ka bilaawanayaan marka waxaan rabaa horta marka ugu horeyso naftaada inaad aaminto adiga aad isku kalsoonaatid aad tiraado waxaan waan sameeyni karaa ma jira adduunka wax aad tiraado waan sameynayaa hadii aad adiga dib isku dhigin wax ka hor istaagi karo malahan waa qodobkii koowaad qodobkii labaad aan ka hadlayno waxa waaye half a target waa inaad lahaatid mowqif ama wax aad rabtid horta maxaa rabtaa inaad sameyso because inaad istiraado waxaan sameyn rabaa todoba shay hal mar ma wada qaban kartid waa inaad hal meel isku soo koobto aad tiraado waxaan sameyn rabaa waxaan hamigaygu yahay waxaan saan u yeeli rabaa target marka aad lahaatid waxa waaye aad naftaada aad ku kalsoonaatid targetkina aad lahaatid aad istiraado waxaan rabaa inaan sameeyo wixina aad ku kalsoonaatid aad hore u sii socotid waxaad rabtidna aad ogtahay meel aad rabtid inaad ka gaartid aad ogtahay watahay intaas daasi bayaanayo Cali adigu ma hasan targetka taa ku sheegto inuu qofku marka wixii uu rabay oo marka uu rabay inuu sameeyo inuu marka ku taakiidiyo oo ka dhabeeyo tusaale oo kale qof walba markii uu yar yahay oo kale soo hana qaaday waxbarashada waxba uu jecel yahay inuu noqdo anigana tusaale ahaan daas ka soo qaado markii ay yaraa waxaan jeclaa inaan wariyo noqdo oo kale wayna ii suurta gashay oo hadafkeedu wixii ku suurta gashay inaan yaani wixii aan rabay aan yaani sameyntoodii aan ku dhiirraday inaan sameeyo ama dad kale caawintooda aan weydiisto sidoo kale qofka markuu rabo inuu yaani qof takhtar kale inuu noqdo rabo waa inuu ka dhabeeyaa ula jeedtii wixii uu rabay marka uu sameeyaa muxuu marka dhabeena jaranjartii waxa loo mari lahaa waxbarashadoodii taas ayaan ku darsan waa sida ay Caasho u sheegtay weeye marka wax walba aad rabtid targetka ahamiga aad leedahay waa inaad hore u sii socotid aad ku sii dhaqaaqtid aadna marka daalin inta hadii aan ka dhex galo ma jiri kartaa in caqabado ay hor istaagi karaan qofka markuu rabo inuu marka wixii uu rabay inuu ka dhabeeyo hadafkiisii inuu markaasi u bedelo guul oo wixii targetka uu ahaa inuu marka gaaro ugu dambeyn way jiraan because waxa dhaxi karto waxaanad rabtaa inaad sameysid wixii tusaale ahaan gabar aad tahay Soomi صح hamigaagu wuxuu ahaa inaad wari noqoto صح wayna ku yar tahay ama dhaqan ahaan markaan dib u fiirino waxa jiro caqabadaha oo kale oo la dhihi karo ma gabar aan sameeyay ma gabar waxaan sameeynayso caqabadaha marka waxa waaye horta adiga caqabadayaashaas markay ku imaadaan waa inaad noqotaa qof waxaan oo asaga uu rabo inuu sameeyo xidna uu kala tashanayna marka wax walba oo ka hor imaado waa inaad iska hor leecisaa tusaale ahaan ma dhahayo diin baan leenahay dhaqan baan leenahay muslim baan nahay dhaqanka iyo diinta aan ka baxno ma dhahayo laakiin wixii adigoona dhaqankii ka baxin waa inaad yani waxaagii aad sameeyso waxaadna adiga si toos ah u sameysatid aad iyo tahay adigoo qodobka xigo si qodobka saddexaad waxa waaye ogow qodobka saddexaad waxa waaye avoid what others will say about you waxa jiro dad waxa jiro oo mar walba wax ka sheegayo صح oo runtii horumarkaaga hor taagan صح dadkaas oo kala marka tusaale ahaan si walba u wanaagsan tahay wax walba wanaag aad sameyso
qof walba ma wada qanxinaysid وبني هذا ما نقنع lama wada qanxin karo dadaa waxaa jiro wanaag aad sameynayso xumaan u arkaan dadaa waxaa jiro xumaan aad sameynayso wanaag u arkayaan marka qodobka saddexaad aan kusoo qaadanayno waxaa waaye waa qayb ka mid ah ama waxyaalaha ku hor istaagi karo saa noloshaada horumar u gaarsiiso marka dadku waxay ku dhahayaan ha fiirinin si walbaad u wanaagsan tahay si walbaad u fiican tahay dadka dhan ma wada qanxin kartid marka waa inaad aad tustaa waxaan inay wax adigu kugu jiro ah waxaad rabtid inay tahay ha u joojinin hadafkaaga ha ka sareeyo ha dhihin dadkaana saan dhahay waxaana sidaana maya waa inaad hore uga sii socotaa tii saddexaad waxaa waaye dulqaad tii afraad sorry waa dulqaadka tusaale ahaan Soomaali haddaanu nahay dulqaadka aad buu ugu yiri wazaid totally aad buu ugu yiri tusaale ahaan waxaad arkaysaa dad waxaa jiro oo maanta dhan shaqeynayo dhagacay jibinayaan intay ka baxayaan saan ay sameynayaan wabo hadhow aakhirkii waxay sameynayaan wax bay ka keenaan anaga laakiin markaan fiirino dhagac jibis dulqaadkaas dhan ma lihin ma dhagac jibis aan ka leecana ma waxaas marka wax walba horta guriga hata asagoo markii la rabo in la dhiso ma aragtay guri hal maalin lagu dhisaayo dabaqan hadda tusaale ahaan dabaq aragtida hadii aad ogaatid dabaq si loo dhiso dhulkii oo siman baa hoos loo qodaa kadib hoos yaa laga soo bilaabo wax walba marka waa asaasi marka wuxuu u baahan yahay dulqaad waa inaad dulqaad lahaataa naftaada ku kalsoonaata dulqaadkaas aad laato wax walba kugu soo galo laakiin marka laga hadlayo dulqaadka oo kale Soomaalida murtideeda aad bay u fara badan tahay ka hadashay waxa la yiri sabarka waa dulqaadka laga wadaa sabarka sibir uu ka qaraariya waliga sibir ma dhimisay caliyo sibir waliga ma dhimisay waan zaid buu qarar weey qofkii sibir dhadhamiye u baan garan kara dulqaadka halku leeyahay marka sibirka waa wax marka qaraar oo laga yaabo maalintaas oo dhan inuu carabkaaga ka dhadhamo adan wax kale uu san ku dhadhamin asagoo ku dhamo marka maadaama sibirka uu dulqaadka uu ka qaraar yahay haddana waa ku qasban tahay nafta inaad dulqaad siiso maadaama sabar la'aan noloshu aysan horumar gaaraynin oo dhiba ay ku noqonayso caqabad hortaagan haddii dulqaadkaaga uu yaraado in noloshaadii horumar ay la tallaabsawayso waa marka waarun because sabarka horta wax walba loo baahan tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado cunug yar oo socod baranayo xunugan wuu socdaa wuu kufaa marka waxa la dhahaa markuu kufana waa bodaal wala jaba wuu kufaa wuu kaxa wuu socdaa wuu kufa aakhirkii socodku baranaya marka macnaheedu maxaa waaye marka haddaadan dulqaad lahayn wax walba aad rabtid ma gaarisid marka waa qodobadeed ku soo dirtay kamid tahay sabirka because dib walba ku soo maraysaa waxaadan dib ku soo marin raxa ku maxuleysid صح marka qofka raba inuu noloshiisa horumar ka gaaro ha ku darsado inuu sabarka badiyo sabarka waa inaad badiso because dulqaad la'aan because wax walba aad sameynaysid horaan way dhib badan tahay aad u badan tahay wayna kugu adag tahay marka waxa raba marka however hard it is si walba ay adag u tahay dulqaadkaas inaad lahaatid waana qodobkii afraad qodobkii shanaad arabo horta ay heed inaan hormariyo laakiin aan dib ugu keeno waa prayer ducada qos waa inaad horta Ilaahay ku xirnaataa marka hore riyo walba taasoo bilowga nolosha ahayd oo laakiin maadaama ay noqoto barnaamijkaaga qaybta hore ay noqon weysay laakiin waan ku soo daray marka waxa la rabaa horta ducada runtii waa wax aad u wanaagsan qof inaad Ilaahay ku xirnaatid because wax walba dhaco Ilaahay baa qoro صح maadaama dadaalkana qoraal waa wax Ilaahay qoro laakiin dadaalka aad lagaga baahan yahay marka waa inaad wax walba aad u duceysatid aad u dulqaadatid aan ku shukrisaa Ilaahay because shukriga aad Ilaahay ku shukrinaysid ama ku duceysanaysid aad tiraado wax badan buu ku ziyaadinaa way quraanka tawaad maqashay inuu ilaahay la in shakartum la azidannakum si walbaad wax aad ku shukriso Ilaahay hada ku shukrisid wixii aad haysid uu ku ziyaadinaya marka la imaa shukri qof shukrinayo qof Ilaahay ku xiran qof alxamdulillah mar walba inaad tiraado aad ku duceysatid
alxamdulilah waxaa loo baahan yahay oo kale markay waa kasta uu kuu bariyo iyadoo la ogyahay in qofka haddii waaga uu bariyo inuusan ku fakerin inuu gobolka u dhacayo uu ku xisaabtamo moodka haddana loo baahan yahay waaga markuu kuu bariyo ilaa adigoo caafimaad qabta inaad ilaahay ku shukriso dad baa waaga u baryin iyagoo caafimaad qabo lugahooda qabaan ay markaa seexdeen haddana waxay soo kaceen iyagoo markaa lixaadoodi lahayn marka haddii adigoo lixaadaadi qabtaad soo kacday waa qayb ka mid ah inaad ilaahay ku shukriso ku untay waxayna tahay tallaabo inaad usii qaado noloshaadii kale horumarinteedii oo ah wax caqabada inaysan kusii hor istaagaynin iyadoo qaybta ducada ay ahayd bilowga nolosha qofka asaasku ah waxaa la yidhi qofka markuu dhalanayo wuxuu dhashaa isagoo ooynay markuu dhimanayana waxaa la yidhi wuxuu dhintaa isagoo dadkii dhan ay wada ooynayaan oo murugaysan yihiin marka waan dareemi karnaa markuu asaga ooynaya dadkii way faraxsanaayeen dhalashadiisii ku faraxsanaayeen marka adduunkaas saas iska ah bal qodobadii kale da sii raaciso mawduucina ku saabsanaa sida qofka noloshiisa uu horumarin karo caqabadaha hor istaagi karo iyadoo mawduucyo fara badan oo kalsoonida nafta ay kamid tahay iyo qodobo kale hordhaca u sameysay bal gabagabadiian soo gaarnay maxaad kusoo gabagabaynaysaa maadaama mawduucan halkaas aan uga hari doono inkastoo wanaagsaneed inaan sii wadno haddana qaybihii ugu muhiimsanaa nolosha sidaa ku horumarin karto haddii aadan daawan qaybtii hore barnaamijka bartuwan waxay ku jirtaa janaalka Caasha Cagan oo dibada ayaad daawan kartaa cali haye gabagabada tan ugu dambeysaan kusoo gabagabaynaa waxaa waaye ogow mar walbana la soco nolosha tanaad maanta ku jirta inay biri noqonaynin dib walbaad maanta martid inaad biri ka baxaysid wanaag walba maanta aad ku jirtid laga yaabaa inuu biri iskugu bedelo dib marka qof walba waxaan leeyahay waa meesha ugu muhiimsan ugu fiicneed waxaa waaye noloshaad maanta ku jirtid ma sii soconayso wax walba ku iimaan karo dib adoo ku jira laga yaabaa inaad dibkii ka baxdid biri aad farxad aad gasho adoo maanta farxad ku jirta laga yaabaa inay biri dib kugu noqoto marka waxaan leeyahay mar walba ku xisaabnaa kuna fikir kuna jiifa kuna soo kaca wax sida maanta tahay inaad biri noqonaynin aad iyo aad cali aad buu u mahadsan yahay daawadayaal waxaad daawanayseen janaalka Caasha Cagane xubin muhiim ah oo ku saabsaneed dhameystirka sida noloshaada aad horumarin karto iyadoo qaybtii koowaad aad ku daawateen toddobaadkii hore barnaamijka anigoo Caasha Cagana ayaa idin la socodsiinayay cali ayaa gala qayb qaato oo ah martida barnaamijka wax kalena waa idin soo gudbin doonaa oo aad u xiiso badan oo aan markaas meelo badan oo arrimaha bulshada ku saabsan aan isdul taagi doono hadduu eebaha awood leh oo qaado haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe-ka ha ka iloobin haddii uu barnaamijka ku qanciyay oo aad ka heshayna waxaan kaa codsan lahaa in aragtidaada aad comment ahaan inoogu reebto qaybta hoose ee commentiga asxaabtaadana la wadaag comment share iyo sidoo kale subscribe haddii aad janaalka ku cusub tahay waadna mahadsantihiin mar kale sidaas iyo nabadgelyo